Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Aad baa idin soo dhaweynaya akhyaarta ku taxan barayga bulshada meel kasta oo joogtiin. Muuqaalkiina maanta wuxuu ku saabsan yahay laba activity oo muhiim ah. Birtina column-ka ayaa waxaan ku talaalaynaa birti kale ee weyneyd ee main bars of column ayaa isku talaalaynaa. Sidoo kale waxaan shubi doonaa shubkii ground slab-ka ah. Marka labadaas qodob ee muhiimka ah oo laba activity oo laba maalin kala duwan kala dhacay ayuu ku saabsan yahay muuqaalkiina maanta. haddii aan ku hormarno process of joining bars baraha qaabka lisugu xiro birta hoose ee neck columnska ahayd ayaa waxaan ku xirnay birta kale ee main barska ee columnka oo ujeedaa habka aan isugu xirnay spacingkenaga waa 20 si fiican baan isugu xirnay meesha ay kasoo laamayso waa soo joocinay ama waa soo bandhigareynay muhiim waaye oo ujeedaa staffkeena waa way 8 spacingka waa 20 birtaan isticmaalayno waxa weeye waa Y14 waaye main bariska marka kuwaas noocaas ayaan u soo xiranay noocaas ayaa la isugu xiraa marka muhiim waaye in aad fahamsan tahay qaabka birta la isugu xiro birta hoose iyo birtan waliba anaga biraha qaar ayaa naga gaabtay oo ground beamka naga raacay marka laakiin si adag ayaa u sameynay oo stirrups-kana waa u badinay oo waxa weeye sheeg si fiican baan u soo adkeynay hoosna drilling ayaa sameynay oo 10 senti camal baa gelinay marka aad iyo aad bay muhiim u tahay in birta habka loo develop gareeyo la isugu xiro joining neck column bars to main column bars muhiim waaye marka muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay qodobkaas iyo qodobka kale asagana preparation of ground slab oo ujeedaa waxaan dhiganay birta kale ee feelasayda ama Y6 wire mesh 140 waa garanaysiin birtaasna waxaan ugu soo diyaar garoobeynay ground slab-ka kol dhawaan insha Allah taala next day ayay noo ahayd hadda ayaan shubi doonaa ground slab-ka this is marka waxa weeye waa kana ground slab-ka ayaa socda shubkiisi marka ground slab-kan waxa weeye waa very important dowrka ay birta wire mesh-ka ay ka qaadanaysana aad iyo aad uu muhiim u yahay waxay samaysaa birtaas wire mesh-ka ama feelasayda wax loo yaqaan ama Y6 waa birta ugu yar biraha la isticmaalo waxay samaysaa laba qodob oo muhiim ah shubkan ay muhiim ugu tahay mar walba it helps to distribute loads yani culayska ay distribute ay ku samaysaa and also waxay strength ku ziyaadisaa ground slab-ka marka shaqooyinkan la way qabataa laba sayaan kusoo koobayaa dowrkaas muhiimka ayay ka ciyaartaa marka shubka anaga aan isticmaalayno waa M15 waaye M15 hal shamiita laba ciid ah iyo afar jay ah weeyaan marka hore waxaan usoo isticmaalay M2025 ayaan usoo isticmaalay kan marka waxa weeye waxa weeye sheeg waa M15 baan isticmaalaynaa M15 waa halka strength compressive strength concrete ku jabo weeyaan hore u soo sharxay marka laba team ayaa noo shaqeynaya teamka halkaas ka shaqeynayo qaldada isticmaalayo iyo team kale ayagana qaldada suka isticmaalayo labadaas team ayaa noo shaqeynayo shubka maanta waa culus yahay marka waxa kale oo muhiim ah in si fiican loo fahmo shubkan yani ii sheeg waa waxa ku eg waxa loo yaqaano substructure ama markaan ka soo baxnay backfillingkii iyo wixii ka sii horeeyay dhan muuqaaladii ka horeeyay dhan waxay ahaayeen aasaaskii marka waa halka aan ku soo gabagabeynay aasaaska oo ujeeda ratio sidoo uu saxan yahay baagas ama sandbags arkaysid waxa ku jiro kuwa waciid kuwa waa shamiito kuwana waa jay mid kasta waa noo xisaaban yahay biyihiina kuwa waxa ku isticmaalaynaa caagas 20 la kala gooyay marka waa muhiim engineerka inuu siiyo instruction saxan ninka qadawalaha ama kashtoriga anagu naqaanaa inta teamka kale ay kugu qabto ayagana waa kuwaas halkaas joogaan baagoodii waa u diyaarsan yahay shamiitada waa furnay waa ka muujido shamiitada waa la cabirayaa jayga waa la cabirayaa ciidana waa la cabirayaa biyahana sidoo kale marka wax isku dheeli tiran ayaa ka soo baxayo marka muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay labadaas qodob muhiimka marka tibiska muhiimka engineerka la rabo inuu ka taxadaro waliba fresh engineerska aan rabo inaan si fiican ugu sheego waxa weeye koo horto ratio isfiican isaga sax ratio engineer un baa fahmi karo foreman iyo si fiican mu fahmi karaan marka
ratio يعني formaan waxaan ka wadaa yani dadka anaga waxay injineero u yaqaanaan oo dadkan academiga aan soo barano qaadada kasoo bilaabeen. Marka ratio-ga concrete-ka loogu talagalay waxaa weeye in ay isu dheeli tiran yihiin jaygii iyo ciidii iyo biyihii iyo maxaa la dhihi jiray waxa ugu muhiimsan shubkana waa jayga weeyaan. Ma jeedaa waa ka halkaas ka socdaa workability-giisa aad u fiican yahay. Haddii tips kale aan ku sii daro oo ardayda inay ka faa'iidaystaan ma jeclahay muuqaaladayda concrete-ka laba test oo muhiim ah la sameeyaa. Slam test oo in situ ah. In situ waxaa ka wadaa meesha concrete-ka lagu shubayaa lagu tijaabiyaa. Waxaana lagu ogaadaa workability of concrete. Concrete-kan iyo sida workable u yahay. Saddex u qaybsamaa waxaa loo yaqaano true slam iyo shear slam iyo waxa loo yaqaano iyo collapse slam. Collapse slamka looma baahno shear slamna looma baahno waxaa loo baahan yahay true slamka. Marka waxaa kaloo isagana la qaadaa cubic test. Cubic test asagu waxaa lagu ogaadaa strength of concrete. Strength of concrete. Concrete-ka iyo awoodiisa after 7 days after 28 days ayaa lagu ogaadaa kadib baa la soo saaraa. Marka tibiskaasna waa kuwa muhiim ah. Waxaa kaloo muhiim ah qaabka loo finish gareynayo. Hadda labadan nin laba fuundi waaye. Ninka waliba Abdullahi Sheikh Cabdi la yiraahdaa waa nin foreman ah. Xogaa fuundi waa ka yar sareeyaa asagu. Foreman waaye is close to be engineer. Marka qaabka finishing uu sameeynayo waa u jeedin. Waa ka labaas gesbi kala hayaan. Alwaaxaas waa mees muraalo weeye. Waa ka qaabkaas oo loo finish gareynayaa. Kaas kor nooga xirana waa taa walihii oo ahaa 10. Marka muuqaalkeena intaas ayuu ku ogyahay. Waxaan leeyahay badanaa akhriya description-ka. Description baa u sameeyaa muuqaal kasto fadlan akhri. Halkaas ardayda waxaan rajeynayaa waxaan ka faa'iidi doonaan.